midowga musharaxiinta mucaaradka xilka madaxda Soomaaliya ayaa shir degdeg ah oo saakay ilaa iyo haatan oo galabnimada waqti dambe casarliiq ay marayso ay kaga tashanayeen dabcan shirkii ku soo gabagabowday Dhuusamareeb ee fashilka ku soo dhamaaday oo ay kula tashanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu hadda ku soo gabagaboobay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho shirkan ayaa midowga musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan culimada ay kamid yihiin bulshada rayidka iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka saraba waxa ay kala tashanayeen iyadoo 8 February la galay hadana in qorshe dawladda Soomaaliya ay markaas doorasho lagu aadayo aysan ilaa hadda sameeyay sidoo kale madaxweynuhu uusan mar hore codsan muddaxileedkiisa in waqti lagu daro isla markaana ilaa iyo haatan aysan dalka ka jirin qorshe markaas doorasho lagu aadayo محمد عبد الرحمن سيرين oo kamid ah midowga musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya ayaa bayaan ay ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka ah warbaahinta la wadaagay waxa shalay iyo maanta iyo maalmahan meeshan uga socday midowga musharaxiinta la tashiyo ay bulshada qaybaheeda kala duwan ay la yeelanayeen waxaad ogtihiin duruufta maanta dalka uu marayo iyo xaaladda ay mataqaan ay ku sugan tahay oo ah xaalad horay dalka aan u soo marin doorashooyinkii laga soo bilaabo 20 sano ugu dambeysay waxa kulantay in hay'adaha dastuuriga ahaa oo madaxweynaha iyo baarlamaankiiba ay dhamaatay mandate-koodii oo madaxweynaha ugu dambeeyay ay bari ku agtahay waxa rajo badan laga qabay shirkii Dhuusamareeb ku soo fashilmay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka inay ka soo bixi doonto qaab doorasho heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaad ogtihiin waxa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaadna ogtihiin in maalinka 8 ah in ay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 20